بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قيبت أفراد تفسير كسورة الفلق. آيادنا وآياد أفراد آيادا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. آية أفراد ومن شر النفاثات في العقد. آية شرحنا آية سوغارني التفسير كذا أو أنفيرين إنه صدح علمات. أيضا وحكي شكينيسا الصواحر النفاثات وحواي السحر ولياش. waxaan kasoo sheekeynay nabiga caleyhi salaatu wasalaam in la sixray sida ku qoran albukhaari wa muslim iyo aimada culammada sunanta qaarkooda siday soo wariyeen. Marka waxaa sugan in rasuulka la sixray xikmado badan oo ilaahay oo meesha ku jira. Ay ugu horeyso inuu sixir jiro, maaragtay ay ku xigto sixirka inuu dawo leeyahay, ay ku xigto axkaamta la xiriirta kuwa sawaaxirta ah iyo ficilka sixirka wuxuu yahay. marka ayadan iyadoo kooban waxay tilmaantay ilaahay markuu leeyahay subxaana wa tacaala wa min shari nafaathaati. waxaan ku xiraynaa aayaddii koowaad waxay ahayd qul waxaad dhahdaa nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam acuudu waxaan magangalayaa birabbi lfalaq, rabbiga subaxda ama makhluuq kastoo ilaahay abuuray oo wax ka dhambalmayo oo wax ka soo baxayo. allaha abuuray makhluuqaasi iyo waxa kasoo dhex baxayo allahaasaan hoosgalaya. saasaa leedahay. marka maxaa ka hoosgalaysaa waa soo akrinay. marka qofku u dhaho qul acuudu birabbi lfalaq min shari maa khalaq, min shari maa khalaq, kii ilaahay uu abuuray shartiisa. marka makhluuq walbo ilaahay abuuray shar ayuu wataa. marka shartaasi waxaad ka magangalaysaa ilaahay subxaana wa tacaala cidday doonta ahaato, marka laga reebo ambiyada oo macsuum ah oo ilaahay ilaaliyey. wixii kasoo haroo dhan sharuu wataa. marka suuraddan inaad akhrisato waaye mar kasto. waxaana sunno ah subaxdii 3 jeer inaad akhrisato, habeenkii markaad seexanay 3 jeer inaad akhrisato. waxaa kaloo aad akhrisan kastaa mar kasta, sababtaa cid kastoo kaa hortimaado oo makhluuqa oo ilaahay abuuray sharuu wataa. min shari maa khalaq wa min shari gaasiqin idaa waqab. waa kasoo hadalnay iyadoo faahfaahsan mugdiga habeenkii ama nooc kastoo mugdi ah waxa ku qarsoon oo shar ah ayaad ilaahay ka magan galaysaa. hadda waxaan soo garnay aayadda afaraad wa min shari nafaathaati. wa min shari shar xaggeeda annafaathaat alsawaaxir waa sixroolayaasha kuwii wax afuufaya. markay xaggee ku afuufayaan? marka sixir ayaa waxay ku afuufayaan fi lcuqad, guntamaha la gunnaday dhexdiisa ee waxay ku afuufayaan sixir uu soo baray shaydaanka. halkan marka waxaan ka qaadanaynaa kow saaxirka shar inuu wato. marka halkan micnaheedu ma dheheen culummada saaxirka inuu khayr wato, laakiin saaxirka laba nooc ah. midna waxa waaye waa sixroole, laakiin wax kuma gaarsiinaa, wuu ka aaminsan yahay. haddaa rabto baasif ku tilmaan ama sixroole aan active ahayn, macnaha aan khatar kugu ahayn, adiga waa aamusan yahay. marka markuu aamusan yahay shartiisa iyo markuu howl galayo shartiisa labadaba ilahaa ka magan galaysaa. sababtaa sixroolaha waa shar socota. qofka sixroolaha ah maadaama ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankii si cad uu noogu sheegay inuu qofkaasi kaafir uu yahay. fii suurati albaqara aayadda 102 ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wamaa kafara sulaymaanu walaakina ashayaadiina kafaruu
يعلمون الناس السحر. نبي سليمان قال ما هين شياطينتي أو فرفريي ملكي سليمان مركو دنتي كدب كواسا قالوا بي صوبتو dadka waxay barayaan sixir. qiso dheer waaye. nebi suleymaan markuu dhintay kursigiisii ayaa waxaa laga helay wax alle wuxuu ka soo ururiyey niman kitaab gaabloo ahaa oo carraafiin ahaa oo sixroolayaal ahaa oo dhib waday. marka iyagu ka qariyey, marka kursigiisu hoostiisu ku qariyey. markuu ku qariyey kadib markuu dhintay ayaa nimankiyaa soo faagay oo shayaadiinta. markaasi dadku waxay ugu sheekeen waaka suleymaan waxay adduunka dabeesha jinniga caalamkaasoo dhan ilaahay uu u sakhiray wuxuu ku hantay waa sixirka. marka haddaa rabtaa inaa hanataan sixirkan idin baraya adduunkao dhan idinkaa gacanta ku dhigaayo. markaasaa marka ilaahay subxaana wa tacala uu dhahayo shayaadiintaa gaalowday. gaalnimadooda markii la caddeynaya waxaa la sheegay yucallimuuna naasa asixr, dadkay sixirka barayaan. marka halkan qofka sixirka baranayo waxaa cad in uu gaal yahay, waxaana gaalaysiinayo waxa la barayaa kufri ah. sababta ilaahi subxaana wa tacala markuu dhahay walaakina shayaaiina kafaruu, shayaadiintaa gaalowday. maxaa dhacay? yucallimuuna annaasa asixr, dadkay sixirka barayaan. markii laga sheekeynayo haaruud iyo maaruud oo qisadooda aan ka dhigi doono darsi gooni ah oo u baahan faahfaahin dheer, markay hadlayeen waxay yidhaahdeen wamaa yucallimaani, ilahay wuxuu leeyahay wamaa yucallimaani min axadin xataa yaquulaa inamaa naxnu fitnatun falaa takfur. cidna sixirka ma baraynin ilaa ay u sheegaan waxaan oo sixirka ah inuu fidno yahay ee xaggaaloobin. lidaalika culammada marka waxay dhaheen xukunka barashada sixirka waa xaraam biitifaaqi alculamaa, culammada isku waafaqsan yihiin. markaase waxay yidhaahdeen barashada oo la baranayo lafteeda kufri ah. marka qofka saaxir markuu noqdo wuu gaaloobay, sababtoo ah meeshuu ilaahay ka rumeyn lahaa booskiisa wuxuu rumeeyey shaydaanka, shirkiguu ku jiraa, awooddii shaydaanku rumeeyey. marka qofkaasi sixir looga ah qofka u tegayo isagana wuu gaaloobay. xadiis waxaa jira rasuulka calai salaam uu dhahayo qofkii qof carraaf ah oo kitaab gaabloo ah oo sixirow ah oo u yimaado oo rumeeya wuxuu u sheego, nebi maxamed beri ayuu ka yahay qofkaasi. marka qofkaasi nebiga beri ayuu ka yahay iyo wuu gaaloobay, nebiga calai salatu salaam beri ayuu ka yahay ayuu xadiiska leeyahay. xadiis kalena wuxuu leeyahay haddii qof uu u yimaado qof sixroola ah, imaatinkaas oo keliya markuu u yimaado, kii kale wuxuu ahaa oo rumaysta. markuu rumaysta kadib wuuba gaaloobayba, ileen shaydaanuu rumeeyey, shaydaanuu is-hoos keenay. awooddii ilaahay booskii inuu ka saaray ayaa wuxuu booskii uu siiyey shaydaan inuu awood leeyahay, isagoo shaydaanka ama saaxirka wax awooda uusan lahayn. ilaahay isla suuraddaasi 102 wuxuu ku yidhi wamaa hum bidaariina, wuxuu ka hadlayay maaragtay sixroolayaasha iyo waxay sameynayaan iyo awoodahooda. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wamaa hum bidaariina bihi min axadin ilaa biidni illaah. ilaahay inuu xukumo idinkiisa oo qof uu wax ku noqdo maahine cid ay wax ku yeeli karaan sixirka ma jiro. saas ay tahayna sixroolayaasha awood kooban oo xadidan ayaa la siiyey ilaahay dadku ku imtixaanay. marka nebi muuse way sixreen, waa kan ilaahay uu leeyahay yukhayalu ilayhi min sixrihim annaha tasca. waxaa loo muujiyey maskaxdiisa ee arkaysay xargihii annaha tasca inay ordayaan oo sida masaska oo kale ama abeysooyinka ay u ordayaan. marka
khiyaaliga waxaan xaqiiqo ahayn laakiin maskaxda iyo indhaha raad ku yeesha. marka awooddaasi maskaxda indhaha raad ku yeelato qofka raad way ku yeelan kartaa, xanuun way ku ridi kartaa. lidaalika culammadu waxay ka hadlaan marka kow sixirka ma jiraa? haa wuu jiraa, waa rumaynana sixirku inuu jiro, laakiin awood ma leeyahay qofka saaxirka oo la mid awoodda ilaahay? maya, ma laha. qofka saaxirka ah wuxuu doono kugu samayn karaa, may kuguma samayn karo ilaa ilaahay subxaana wa tacaala uu idmo maahin. idan marka awoodda ilaahay subxaana wa taala xaggiisay u laabanaysaa. marka sixirka ma jiraa? waa jiraa. laba, qofka saaxirka ah oo camalka sixirka mumaarasad ku sameynaya, camalkaasi ma xaaraan baa? waa xaaraan. qofkaasi camalkaas sameynaya ama bartay ama ku dhaqmayo ma muslim baa? mase muslim maaha? maya, waa gaaloobay. maxaa xukunkiisa uu yahay? xukunkiisa waa dil. culamadu waxay soo qaateen xadiiskii bukhaariga ay saxiix ahaa, man badala diinahu faqtuluuh. rasuulku wuxuu qofkii diintiisa bedesha, diintooda ayaa islaamnimadii, booskiisa waxay geliyeen shirki oo diin kale oo shirki ah, waxay rumeeyeen shaydaan. sixirkana ma sameyn karo ilaa qofka shaydaanka 100% isu dhiiba maahan. 100% qofka markuu shaydaan isku dhiibo wuu gaaloobay. markaasi kadib markii qofka uu gaaloobo, marka xukunkiisa wuxuu noqonaa dil. waagii sayyidina cumar asxaabta waxay ka soo guuriyeen kutubta ay soo guuriyeen maalin kaliya ilaa 7 isagaa amray. wuxuu yidhi maal kastoo aad ku aragtaan qof saaxir ah oo sixir sameynayo soo qabta, maxkamadda hala keeno, hadduu toobad keeni waayo hala xukumo. maalin kaliya 7 qof oo sixroolayaal ahaan dilni u dhahay. qofkii u taga ka waran aan rumaysan u tegitaan kaliya. xadiis waxaa jira rasuulka calaih salaam uu yidhi man ataa caraafan, qofkii qof oo sixroola ah u yimaada, kitaab gaabloo ah ee wax fiirfiiriya wax faaliya u yimaada, nabiga calaih salaam wuxuu yidhi ilaahay kama aqbalayo 40 maalmood salaadooda. 40 maalmood waa bil iyo 10 maalmood. salaad kasta uu tukado qofkaasi waa tegitaanka. imaam cuthaymiin markuu fasiraya raximahullah wuxuu yidhi u tegitaanka uu u tegay oo keliya, xataa isagoon su-aal weydiin. waayo xadiis kale wuxuu leeyahay man ataa caraafan fasa'alah, qofkii macnaha kadibna wasadaqa, macnaha waa rumeeyey. su-aaluu weydiiyey, su-aashii jawaabteeda wuu rumaystay, shaydaankii halkaasuu ku rumeeyey, wuu gaaloobay. qofkaasi faqad bari a nabiga alay slam beriyu ka noqday iyo diinta islaamka. marka xukunkiisa waa dil, u tegitaankiisa waa xaraam. qofkii u taga salaad lagama aqbalayo isagoon su-aal weydiin, u tegitaanka oo keliya. marka shartaasoo dhana ilaahay ka magan galaysaa. marka wa min shari annafaahaat. annafaahaat waa sixroolayaasha. annafaahaat waa kuwa ku tufayo, ku afuufayo. fi lcuqad waa guntumo la sameeyey. guntumahaasi qofka waxaa lasoo qaadaa tintiisii ama cididiisii, ama waxaa lasoo qaadaya shalladii oo jabtay. wixiiyaa laysku xerxerayaa. markaasi waxaa lagu akhrinayaa wixii shaydaanka uu aaminsanaa oo gaalnimada ee shirkiga ahayd. intaas oo dhan shartooda ay ilaahay ka magan galaysaa. marka qofkii suuraddan akhristo 3 jeer habeen walba intuusan seexan, ama subax walba markuu soo tooso, uuna la akhristo suuradda ku xigto oo ah suuratu nnaas, qul acuudu birabbi innaas maliki innaas ilaahi innaas min shari alwaswaasi alkhannaas alladii yuwaswisu fii suduuri innaas min aljinnati wannaas. waa 6 aayadood iyo 11 aayadood. rasuulka lagu soo dejiyey markii nebiga la sixray, oo 11 gunnadood oo timihiisii iyo shalladiisii qayb ka mid ah in laisku duuduubay ceel hoostiisa lagu qariyey, oo rasuulku uu amray calayhi salaatu wasalaam in cali iyo asxaabta qaarkood ay tagaan cafwan dhagax ay ka soo saaraan hoostiisa sixirkii. nebiga markaas jibriil ayaa wuxuu u keenay 2 suuradood. waa 11 aayad kasta markuu akhrinayo sixirkaa furmaayo. marka ilaa 11 aayadood markuu dhameeyey rasuulka calayhi salaam wuxuu noqday qof fayo oo caafimaad qabo. marka qof walba oo sixran ama masxuur ah 11 aayadood haddii lagu akhriyo, markiiba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu faydayaa. waxaa shardi ah oo keliya hadduu asaga isku akhrin kara inuu isku akhriyo,
hadduusan isku akhrin karin waxaa shardi ah in qof ahlu khayr ah ahlu salaax ah oo ducadiisa la aqbalo oo alla ka cabsigiisa iyo maaragtay is ilaalintiisa iyo dhowrsanaantiisa la aaminsan yahay qof noocaas oo kale ah